أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدومية iyo guddiga sharafta leh ee siid oo goobtan nagu soo dhaweeyey. Marka hore salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa. Salaan kadib maanta oo bishu tahay 20 bisha Abriil waxaanu saxaafadeedkan iyo shirkan guud oo guddiyada saddexda heer guddiyada doorashada aanu isugu nimi in aan caddayno in doorashadii Ceelwaaq ay dhaqaaqday oo diyaar tahay inay maaragtay la soo qabto dhaqsana loo baxo. Guddiyada saddexda heerba ay baxaaniin fiid iyo siid iyo arrinta khilaafaadka si loo soo dhammaystiro doorashadii aan dalka u maamulaynay guud ahaan oo ay ka harsan tahay 16 iyo 3 xubnood oo ku harsan 4 xubnood oo waxay ku harsan yihiin Hirshabeelle. 20 xubnood ayaa doorashadii 329 xubnood ahayd ka dhiman. sidaa darteed waxaan hadda loo dhaqaaqayaa in 16 kursi oo Ceelwaaq oo deegaan doorashada labaad ee Jubbaland la soo gabagabeeyo iyada oo guddiyada fiid iyo siid ay dhammaantood wada tegi doonaan ayna dhammaantood ay joogaan intooda badan sida guddiga fiid oo hadda ay ka joogto shirkan xubno kolomkii oo buuxa ama kaba badan siidna ay 12 xubnoodba ka joogaan qoladan xalinta khilaafaadkuna ay iyaguna ilaa 6 xubnood ay ka joogaan oo diyaar u ah inay doorashada wax ka soo qabtaan. doorashadii dalka way gabagabowday. waxaa noo harsan boqolkiiba 3 wax aan gaarin oo ah tirada aan sheegnay. waxaa dadaallo badan iyo shaqo badan oo adag oo guddiyadu soo qabteen aad baan uga mahad celinayaa. ay soo gaarsiiyeen maanta inay doorashadii ka dhiman tahay tirada yar oo iyadana maanta ayaamahan loo dhaqaaqayo insha Allah si loo soo gabagabeeyo. waxay ahamiyaddu tahay in xubnahaas 16 ah iyo 4 xubnood oo ku dhiman Hirshabeelle aanay ka harin guddoon doorashada golaha shacabka oo ay 24 ka hor ay xeroodaan shahaadadooda la siiyo la dhaariyo kadibna ay maaragtay ku xeroodaanin xarunta golaha shacabka. arrintaasi juhdiga aan ugu jirnaa intaas weeye. waxaan ugu baaqayaa xubnaha ama xildhibaanada murashaxiinta ah oo doonaya in ay maaragtay ka qayb galaan inay sida ugu dhaqsaha badan uga xaadiraan Ceelwaaq si ay u soo qaataanin xubinnimadooda matalka ugu yihiin bulshadooda Soomaaliyeed. iyagana saasaan ugu baaqaynaa inkastoo aan filayo intii badnayd in la ii sheegay inay joogaanin Kismaayo oo ay xagga u gudbayaan. waxaan kaleeto oo rabaa inaan xaqiijiyo bisha 13keedii go'aankii ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo oranayay in uu caqabado badan dartood loo wareejiyey deegaan doorashadii labaad 16 Ceelwaaq. xubnaha guddiga ka soo horjeeda go'aankaas oo go'aan loo wada dhan yahay ahaa waxaan u arkaynaa inay noqon doonaan xubno doonaya inay carqalateeyaan guud ahaan doorashada dalka ka hor yimaadaan. arrintaasna waa uga digaynaa inay waxyaabaha noocaasa iyadoo doorashadii dhammaatay oo wanaag lagu saagootiyey in ay maaragtay waxyaabo noocaasay guddiga dhexdiisa ay ka soo baxdo. waa arrin runtii aan aad iyo aad uga xumahay. waxaan jeclahay insha Allahu inaan bulshada Soomaaliyeed u sheego annaga doorashadii Soomaaliya aan mas'uuliyaddeeda haynay boqolkiiba 99 waa naga dhammaatay. 16kan Ceelwaaq yaalna waa la soo gabagabeynayaa sida ugu dhaqsaha badan haddii Ilaahay idmo. waynu kala ducaysanaynaa annaga guddi ahaan
dhibaatooyinka iyo waxyaabaha na soo maray waxaanu u tadxiyeynaynaa ummaddayada Soomaaliyeed baanu aanu u huraynaa naftayada iyo insha Allah dhiigayaga maadaama mas'uuliyad nala saaray waynu kala ducaysanaynaa waa is saamaxaynaa guddiyada guud ahaan meel baynu isugu imanaynaa insha Allah waxaan rajaynayaa in la diyaar garoobo sidii loo tegi lahaa goobtaas sida ugu dhaqsaha badanna loo soo gabagabayn lahaa intaas ayaan kaga baxayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Guddoomiye iyo guddiga sharafta leh ee Siid oo goobtan nagu soo dhoweeyey marka hore salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa. Salaan kadib maanta oo bishu tahay 20 bisha Abriil waxaanu shir saxaafadeedkan iyo shirkan guud oo guddiyada saddexda heer guddiyada doorashada aanu isugu nimi in aan caddayno in doorashadii Ceelwaaq ay dhaqaaqday oo diyaar tahay inay maaragtay la soo qabto dhaqsana loo baxo guddiyada saddexda heerba ay baxaaniin Fiid iyo Siid iyo arrinta khilaafaadka si loo soo dhammaystiro doorashadii aan dalka u maamulaynay guud ahaan oo ay ka harsan tahay 16 iyo 3 xubnood oo ku harsan 4 xubnood oo waxay ku harsan yihiin Hirshabeelle 20 xubnood ayaa doorashadii 329 xubnood ahayd ka dhiman sidaa darteed waxaan hadda loo dhaqaaqayaa in 16 kursi oo Ceelwaaq oo deegaan doorashada labaad ee Jubbaland la soo gabagabeeyo iyada oo guddiyada Fiid iyo Siid ay dhammaantood wada tegi doonaan ayna dhammaantood ay joogaan intooda badan sida guddiga Fiid oo hadda ay ka joogto shirkan xubno kolomkii oo buuxa ama kaba badan Siidna ay 12 xubnoodba ka joogaan qoladan xalinta khilaafaadkuna ay iyaguna ilaa 6 xubnood ay ka joogaan oo diyaar u ah inay doorashada wax ka soo qabtaan. Doorashadii dalka way gabagabowday waxaa inoo harsan boqolkiiba 3 wax aan gaarin oo ah tirada aan sheegnay. Waxaa dadaalo badan iyo shaqo badan oo adag oo guddiyadu soo qabteen aad baan uga mahad celinayaa ay soo gaarsiiyeen maanta inay doorashadii ka dhiman tahay tirada yar oo iyadana maanta ayaamahan loo dhaqaaqayo insha Allah si loo soo gabagabeeyo. Waxay ahamiyadu tahay in xubnahaas 16 ah iyo 4 xubnood oo ku dhiman Hirshabeelle aanay ka harin guddoon doorashada golaha shacabka oo 24 ka hor ay xeroodaan shahaadadooda la siiyo la dhaariyo kadibna ay maaragtay xeroodaanin xarunta golaha shacabka. Arrintaasi juhdiga aan ugu jirnaa intaas weeye. Waxaan ugu baaqayaa xubnaha ama xildhibaanada murashaxiinta ah oo doonaya in ay maaragtay ka qayb galaan inay sida ugu dhaqsaha badan uga xaadiraan Ceelwaaq si ay u soo qaataanin xubinnimadooda matalka ugu yihiin bulshadooda Soomaaliyeed. Iyagana saasaan ugu baaqaynaa inkastoo aan filayo intii badnayd in la ii sheegay inay joogaanin Kismaayo oo xagga u gudbayaan. Waxaan kaleeto oo rabaa inaan xaqiijiyo bisha 13keedii go'aankii ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo oranayay in uu caqabado badan dartood loo wareejiyey deegaan doorashadii labaad 16 Ceelwaaq. xubnaha guddiga ka soo horjeeda go'aankaas oo go'aan loo wada dhan yahay ahaa waxaan u arkaynaa inay noqon doonaan xubno doonaya inay carqalateeyaan guud ahaan doorashada dalka ka hor yimaadaan. Arrintaasna waa uga digaynaa inay waxyaabaha noocaasa iyadoo doorashadii dhammaatay
oo wanaag lagu saagootiyey in ay maaragtay waxyaabo noocaasay guddiga dhexdiisa ay ka soo baxdo waa arrin runtii aan aad iyo aad uga xumahay. waxaan jeclahay insha allahu inaan bulshada soomaaliyeed u sheego annaga doorashadii soomaaliya aan mas-uuliyaddeeda haynay boqolkiiba 99 waa naga dhammaatay. 16 ceel waaqiyaalna waa lasoo gabagabeynayaa sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay idmo. waynu kala ducaysanaynaa annaga guddi ahaan dhibaatooyinka iyo waxyaabahana soo maray waxaanu u tadxiyeynaynaa ummaddayada soomaaliyeed baanu aanu u huraynaa naftayada iyo insha allahu dhiigayaga maadaama mas-uuliyad nala saaray. waynu kala ducaysanaynaa waa issaamaxaynaa guddiyada guud ahaan meel baynu isugu imanaynaa insha allahu. waxaan rajaynayaa in la diyaar garoobo sidii loo tegi lahaa goobtaas sida ugu dhaqsaha badanna loo soo gabagabayn lahaa. intaas ayaan kaga baxayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.